dhalinyaro badan oo Soomaali ah uma sahlin inay wax badan akhriyaan sababtoo ah tiknoolajiyada keenaysa sidaa daraadeed waxaan rabaa in tiknoolajiyada la adeegsanayo qaab dowladkeena oo jamhuuriyadda Soomaaliya u taalo ayaa rabaa iyo meelaha in la ku haysto cadawgu uu haysto aynu iyo meelaha la isku haysto cadawgu nagu haysto inaynu kor ka aragno gaar ahaan badaynu u badan doonaa sababtoo ah waa aniga waxaan si fiican u aqaan halkani waa aaga ay doonayso Ethiopia. Ethiopia waa wadan cadow ah oo dhul Soomaaliyeed inaga haysato oo la yiraahdo dhulka Ugaadiniya. Halkan waa Seylac, Saacadudiin baa u joogtaan, Ceebaad baa u jeedaan, waa jasiirada ugu quruxda badan Soomaaliya ayay ku mid yihiin sababtoo ah waxa ku yaala mangrove waana jasiirad u dhow deegaanka. Halkaas waa loo yacdo qofka Seylac jooga wuxuu kantarooli karaa dekada Berbera. Waa sababta dekada waxaan leeyahay Djibouti وسبب جيبوتي أيسن شاكدان مرنبا ugu socon Djibouti hadii halka ka joogto gacanka waxa la dhahaa waa gacanka Berbera Soomaali badan waxay tiraahdaa gacanka cadmeed sababtuna waa qalad inuu gacanka cadmeed adeegsano sida daraadeed gacanka Berbera waa gacan muhiim u ah jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed Djibouti sidoo kale hadii Babul Mandab ay soo galaan xabashidu ganacsigu ma soconayo si nabada kuma marayo waa sababta aagaas ay muhiimka u saarayaan dekada wadakada bro dekada caalami ah oo ka tirsan gacanka Berbera waxa taagan maraakiib badan markabkan hadda waa cargo wuxuuna ka yimi Cameroon Berbera ku socday destination-kiisu alaab dejinayay ilaa iyo waxaan ku arkayay shalayto sidoo kale waxa jira wax kasta oo cagaar hadda ujeedaan cagaar ah oo maraakiibta cargo-ga waxyaalaha sokorta iyo waxa qaada hadda tugta waa markab la yiraahdo waa maraakiibta markay soo degayaan doomuhu soo jiheeya ama maraakiibta waaweyn jiheeya waxa laga yaabaa wadanka Togo wuxuu jiheeya maraakiibta markay baxaya maraakiibta ku soo xiraa sababtoo ah waa mashiin aad xoog weyn ba ku yaala wuxuuna joogaa hadda Berbera sida daraadeed wax kasta oo guduud ahna waa waxa qaada oilka iyo waxyaalaha deegaanka aanu fiicnayn halkan waxa ku yaala xiis iyo mayd xiisiya maar saaxiibkay oo reer xiisa wuxuu yiri dekad yar oo waxa ku taala xoolaha laga dhoofin karo oo buurta xiis laftirkeeda ah xiis port waters maydna dhinaca ka xigta waa meel aad u kuleyl ah oo ku fiicnay xagga deegaanka laakiin istaraatiiji ganacsi leh waxa ku yaala Laas Qoray halkan marka gobolka Sanaag aan wali ku jirnaa caasimadiisu tahay Erigabo gobolka Sanaag waxa ku yaala meel la yiraahdo Laas Qoray degmo la yiraahdo Laas Qoray waxa ku yaala warshadii kalluun ee ugu horeysay ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay yeelato hadda waa bursan tahay waxay soo saari jirtay toone qasaacadaysan ayay soo saari jirtay marka waa meel aad iyo aad u qurux badan oo ku haboon kalluumaysiga marka kalluumaysatadu ay soo qabato kalluunka kan waa dekada Boosaaso shalayto aad mashquul ahayd waxa ka tagay tankarka tangar waxa laga wadaa waa kan qaada saliida iyo waxyaalaha chemicalska oo deegaanka u fiicnayn waa gudud wadabada ku aragto satellite hada kaga aragto hadda waxaan sameeyaa satellite-ka koreed ayaan ka fiirinaa caluula halkan uga jeedaa yaktaas markabka yakta la dhaho waa dooni dalxiis badanaa loo isticmaalaa special thingsna loo isticmaalaa waxyaalaha khaas ah sababtoo waxa laga yaabaa in madaxa saaran yihiin inay saaran yihiin wax la rabo in aysan ogaadaan dadka kale badanaa yak baa la dhahaa dhowr xabba ku jira badeena maanta halkan waa gacanka ma maqashay Ras Casayr ilaa Ras Kamboni Ras Casayr waa meesha ugu shishaysa dhul ahaan qaaradda Afrika waa marka laga tago jasiiradaha Socotra iyo halkaas haddana Horn of Africa dad maqashaan waa halka waa geeska Afrika meeshaas oo dhulkii Bunti ku yaala ama Puntland Baragal baa u jeedaa dadkaas waa cargo markabka aan rabo aad u waa Bayutola markabkan ilaa iyo isbuucii soo dhaafay xeebihi ku jiray waxa ku diiwaan gashan yahay calanka Soomaaliya maraakiibta badanaa waxa lagu diiwaan geliyaa calan wada calanka doonto qaadan karaa Salalah bu badanaa aadaa Salalah waana markab kalluumaysi Salalah waa Cumaan markabkan ishaan ku hayay meelo mamnuuc ay tahay maraakiibta yani doomaha waaweyni inay tagaan ayuu ku jiray xaafun hoosta ka galay waana mamnuuc doomaha noocani inay meelaha galay ila isbuuc ku jiray xaafun baan ku arkay haddana wuxuu marayaa halkaas uu marayaa
oo yacni destinationkiisa iyo meesha ku socdana cid og ma laha sidaa daraaddeed waa shaki weyn buu abuuraya calankeedana wuu ku duulayaa doonidaasi waa 34 mitir doomahaas aaga saas uma soo geli karaan sababtoo ah waxaa loogu talagalay aagkaas kalluumaysada yar ilaa 10 mitir doomaha ah markaan kasoo tagno aan imaadno xaggan galmudug ee gobolka mudug maanta waxaa maraya maamulkeeda Alexandria ku yimi Egypt Mombasa ku socdaa waa markab cargo ah ma aqaan wuxuu wado laakiin cargo-du wuxuu noqon karaa shumitoo kale sokortoo kale waxaas inuu wada laga yaabaa maraakibtaas oo dhan baa maanta xeebteena taagan haddaan u nimaadno xeebteen muqdisho oo dekada muqdisho oo dekada aad u weyn oo dib loo casriyey waxaa taagan markab chemical wada baa ka baxay shalayto markabkaas wuxuu waday chemical oil iyo chemicals ku qaadaa muqdisho ku socday muqdishona geeyay wara baxay marka chemical noocay waday maxaa laga yaabaa inuu saliid waday ama wax kale oo chemicals oo aanan garan karin halkaas markaa ku jirta birta yar ee taagan meesha hadaad aragtaan korka aragtid macnaheedu waxay tahay meeshaas inay tahay meel dekada oo lagu xiran karo inay dhinaca ka xigto waay meel kasta dekad lagama dhawo ilaa 9 dekedood ilaa 10 dekedood ayaa dalkeenu leeyahay oo yar qaarna waaweyn laakiin wax international ah muqdisho iyo kismaayo iyo boosaaso iyo berbera okay markabkan taagan markabkan wuu hubeysan yahay waa nooca qaada containerada ilaa maadaama uu container badan oo dhaqaale badan uu wado Liberia flag buu ku duulayaa waxa laga yaabaa Liberia inaysan lahayn laakiin calanka uu leeyahay Liberia saas la dhahaa marka uu hubeysan yahay maadaama ay ka baqayaan wuxuu ku socdaa Mombasa xeebaheenu maraya waxaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada ah inay halkan fahmaan halkan waa Goobweyn waa meel aad iyo aad muhiim inoo ah yacni waa meel dalxiisayaasha muhiim ah webiga Juba ayaa badda ku dara marka halkan hadaad biyahan dhinaca xiga hadaad tagatid buluuga ah yani waxay noqonayaan macaan dhanka kale waxay noqonayaan macaan halkan dhanoo barax halkaas waxaa ku badan gusduleedka iyo mangrove-ka iyo mangrove haduu meesha ku badan yahay kalluumo aad u muhiim ah laga helaa sida shrimbiga iyo noocyada badan oo kalluunka sidaa daraaddeed meeshani waa Koyame iyo Chirole waa jasiirado aad iyo maxaa muhiim u ah xagga dalxiiska jasiiradaha Soomaaliya meel ku dhawaad 20 jasiiradood baynu leenahay laakiin ma naqaano hadda meeshaas waa toog ama webi ma aha waa toog run off baa lahaa biyaha macaan badan ka soo gala marka roob xoog degaan sidaa daraaddeed waxay aag dhaqaale u noqonayaa dhaqaale aad u badan kalluumaysatada Kenyaatiga aad u isticmaala xeebaheena oo tuugnimo ku soo gala halkan waa meeshii hadda maqashay Kaboni waa meesha ugu saysa dalkeena in marka laga reebo dhulka xoog lagu haysto Kenya xoog ku haysto halkan waa xudud beenaadkii meeshan waa meeshii Kenya lagu qabsatay leenka dheer bay rabeen inay toos u soo saaraan si ay u helaan meeshaas ceelal shidaal laga helay marka laakiin teeni waa inaan oo raacay walow wax yar laga leexiyo afka si aysan land local u noqon Kenya oo xagga EEZ-ka economic zonka ama aaga dhaqaalaha an yar inaga xaggeena lagu soo leexday taasna maxkamadda go'aamisay marka waa meel aad muhiim inoo ah ceelal shidaal iyo xagga kalluumaysiga istiraatiijiyad ahaan almino wada dhulkeenu oo dhulka noocaas u yaala waxaad leedahay dhulkaas u ballaaran meeshaas mashquulka adduunka oo dhan 30% ganacsiga adduunka mara halkaas ay degan tahay waxa qurux badan inaad dhulkaaga taqaano mahadsanidin sharaf iyo karaama idinku